ogtahay maanta waddankeena in uu ka qayb qaato burburinta iyo xasuuqa walaalaha Suudaan. Assalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada meel walba aad joogtiin. Dagaaladii Suudaan ka socday oo isku roga markaan xasuuq qabali ah, kooxaha maleeshiyaadka RSF oo isku bedelay in ay noqdaan kooxo qabiileed ayagoo dadkii u dilaya hab qabiileed. magaalada Al-Fashir oo ka dhacay xasuuqii ugu darnaa abid 2 maalmood gudahooda markii lagu dilay 2,000 qof oo dadka kor u dhaafaya. markii arintan dhacday ayaa adduunkii oo dhan qalqal iyo qayl hal mar ka soo wada yeertay. arrintaani oo lala yaabay weliba Gaza waxaana ka dhicin ayaa ka dhacay magaalada Al-Fashir, taasoo lagu dilay 2,000 oo qof oo dad u badan, weliba lagu dilay magac qabiil ayagoo qof walba la weydiinayo kuma tahay. dadkii xasuuqii meel walba uu galay, dumarkii oo galay, caruurtii oo galay. hadda masawirkan idiin muuqdo waa hooyo iyo labadeeda canug. xabad laguma dilin, balse waa la daldalay, geed intaa la qabtaa la suray. masawirka ma soo muujin karo meeshaan oo TikTok ma ogolo. waa hooyo iyo labadeeda canug. labada canug markaa fiiriso 4 sano mid gaara ma jiro, haddana waa la daldalay hooyadaasi. keligeed maahan, dad badanaa lagu yeelay sidaas oo kaleete. xitaa waxaa jira muuqaal wareegaya baraha bulshada, gabar garbaha intii laga xiray geed laga soo laalaadiyay ayadoo nool, weliba ninkii kasoo laalaadin oo iska duubayo. dagaaladii isku bedeleen dagaalo qabaliya. walaalaheena Suudaan ilaahay ha u gargaaro, dagaalka iyo dhibtaba Allah ka dulqaada ayaan leenahay. haddaan Soomaalinahay duco ayay naga mudan yihiin. balse ma ogtahay dalkeena Soomaaliya inuu ka qayb qaato burburinta iyo laayitaanka dadka shacabka reer Suudaan? dalkeena oo idil maahan, waa qaybo ka mid ah dalkeena. sida aan ognahay, kooxdaha RSF waxaa taageera dowladda Imaaraadka ayayna ka helaan cunto, daawo iyo wax walba hub, balse saldhigooda ku yaala laboorka magaalada Boosaaso. diyaaradaha Imaaraadka habeenkii 7 ilaa 8 ayaa ka kacay habeen walbaba garoonka Boosaaso ay ku sii jeedaan dhulkaas iyo Suudaan. dadka ayaa mar walba waxay ku leeyihiin muxuu Imaaraad Suudaan toos uga aadi waaya, anaga noo soo aadaya. anaga sababtoo noo soo aada ayaa inuu meeshaan dhigto kaydka hubka, kadib kooxaha mucaaradka loo yaryareeyo. ogow meesha qoryaha fudud xitaa la iskuma adeegsanayo. mucaaradka waxay haystaan diyaarado, drones, aan kale haystaan hub casriya, maahan jabhadihii iyo calooshood u shaqaystayaashii hore la yaqaanay. maahan, kuwani waa kuwo ka casriyeysan. weliba Imaaraadku wuxuu keenay calooshood u shaqaystayaal Colombian, Venezuela uu ka soo aruuriyay Latin America. xitaa Suudaan waxaa lagu dilay calooshood u shaqaystayaashii laga soo aruuriyay meelahaas, iyo weliba kuwo Soomaaliyeed oo laga soo waday. dowladda Suudaan ayaa xogta soo aruurisay 26 bishiina oo dhaafay ee Agoosto ayuu yimaaday taliyaha sirdoonka dalka Suudaan. wuxuu ka soo degay magaalada Muqdisho asoo la kulmay madaxweynaha iyo taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Salaad. taliya Generaal Ibrahim Axmed muhiimadii uu Muqdisho u yimaaday ayaa ahayd in uu Soomaaliya u sheego dalkooda in qaybaha burburinta ka qaadanaysa Soomaaliya loo soo dhaxmaro, Imaaraadku soo maro, asagoo warqad xiranna ugu waday madaxweynaha dalka Suudaan. ilaa hadda warqadaas lama oga waxay tahay, balse midda keliya ee noqon karta ayaa ah in uu dacwad ka yahay laboorkaas Boosaaso ee looga soo dhoofiyo hubka kooxaha mucaaradka. walaalaheena Suudaan maanta sidaas nagama mudnayn. waa dadkii ugu fiicnaa xagga soo dhaweynta markii waddankeena burburay 1991 soo dhaweeyay. siyaasiyiinta maanta ugu badan ee Soomaalida hogaamiyay maamul goboleedyada iyo federaalka waxaa ka mid ah, waxay u badan yihiin dad ku soo bartay dalka Suudaan waxbarasho. laakiin walaalaheena Suudaan say noogu liseen uguma aanan hambeenin. fuulkii iyo rootigii dad ku soo dhaweeyeen maanta waxaa loogu bedelay baaruud iyo gantaalo.